nin wal oo Soomaaliya hadduu $1 ugu tabaruco qaranka wax badan ayay u qabanaysaa waayo dhaqaale waa loo baahan yahay waxa sharaf noo anaga maanta inaan ka soo qayb galno ciyaartooygeena qaranka 17 jirada ka yar oo tartan u socda Algeria hadii Ilaahay dhaasaan ognahay marka sidaa darteed diyaar garowgii meeshii aan ugu diyaar garoobi lahayn ayaan maanta joognaa waana bilowga tababarkii aan ugu diyaar garoobi lahayn ciyaarta aan Algeria iyo Senegal la ciyaari doona hadii Ilaahay dhaa marka sidaa darteed muhiimaddu waxay tahay oo macallimiintuna ay rabto inay waqti isku helaan iyaga ciyaartooygooda si ay maaragtay shaqo badan u qabtaan ciyaaro badan oo tijaabooyin ay u sameeyaan kadibna aan markaas ugu diyaar garowno insha Allah inaan mataqaan ciyaarahaas uga qayb galno waxaan rajaynaynaa insha Allah sida aan aniga iyo macallimiinta iyo kulli ku wada tashanay inaan insha Allah taala biidnillaahi alkariim aan guulka keeni doono insha Allah waana mahadsantiin ujeedadeena waxay ahayd maanta xeradan inaan ka soo qayb galno sidii dhalinyaradan loo xereyn lahaa waqti ay isku helayeen iyaga macallimiintoodu tababar fiican u qaadan lahaayeen subax iyo galabba u alaminteyn lahaayeen marka muhiimadda ugu weyn waa arintaas waxaan kaloo meeshan uga baaqayaa runtii ganacsatada Soomaaliyeed cid kasta oo Soomaaliya oo qarankooda aaminsan inay mustaqbalka wax keeni karaan waxaan aaminsanahay in contribution-kooda ama kaalmadooda ay ka geystaan waayo nin wal oo Soomaaliya hadduu $1 ugu tabaruco qaranka wax badan ayay u qabanaysaa waayo dhaqaale waa loo baahan yahay maaliyad waa loo baahan yahay cunta loo baahan yahay qalab loo baahan yahay wax badan loo baahan yahay marka waa in Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta Ilaahay wax siiyay inay qarankooda caawiyaan si berri toola ay guul ugu keenaan waana salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh